khayr waan salaamay nabadoon Said Cabdiraxmaan ayaa hadlaya khayray halka waxaan idinku hayaa waxay yiraahdeen the highest IQ population in the world average IQ by the country 2026 yani sida yiraahdeen dadka adduunyada ugu caqliga badan sanadkan 2016 kolka waan intusi doonaa subhanallah ayda aflagaadada Trump markuu caayay Soomaalida website-dan oo kale ayuu ka helay waxa la yiraahdaa adduunyada waxa ugu caqli badan dadkan Chinese-ka ee ku nool Hong Kong caqligoodu waa 107.37 Soomaa waxaana la yiri adduunyada waxa ugu caqli yar Soomaalida oo la yiri 83.84 bal marka arrintan aynu guda galno anoo waxa diinta islaamka qabtoona idin sheegi doona hadii Ilaahay yiraahdo kolka waxaan ka codsanayaa inaad shooga dhamaysataan oo idaan markiiba immediate conclusion gaarin ama markiiba aydan go'aan degdeg ah ka qaadan arrintan akhyar halkani waa maabkii adduunyada waxa la yiri waxaan intusanaa baa la yiri dadka adduunyada ugu caqliga badan saardin sheegay waxa la yiri waa jasiiradda Hong Kong ee ku taal wadanka Shiinaha oo halkan meesha ku taala okay sawirkan wuxuu tusayaa sida yiraahdeen yani dadka adduunyada ugu caqliga badan kolka midba midku ka sii buluusan yahay macnaha dikh blue uu ka yahay ama more blue uu ka yahay ama darker blue uu ka yahay ayay yiraahdeen waa uu ka caqli badan yahay kolka hawsha aynu gallo waqooyiga Ameerika aynu ka bilaabaynaa halkani waa waqooyiga Ameerika wadankani waa Canada waxa la yiri Canada caqligoodu waxa weeye 102.9 soo xagarateen ma halkani waa Greenland kuma jirto halkani waa Mareykanka gobolkani waa Alaska uu ka go'an yahay Mareykanka sida ogtiin Canada u dhaxaysa Mareykanku iskuma yaalo Mareykanka waxa la yiraahdaa 48 state ayaa halkan ku yaala labada kalena Mareykanka waa 50 state labada kalena midna waa Alaska oo ku yaala waqooyi galbeed Canada ka kalena waa jasiiradda Hawaii ee ku taala badda Pacific kolka Canada waan aragnay Mareykankana waxa la yiri caqligoodu waa 100.4 soo xagarateen ma aynu ka soconno xagga koonfureed Mareykanka aynu u soconno Mexico waxa la yiri waa 93.46 haduu ilaahay ku rooyay wadankan waa waliba Mexico wadankan yar haduu ilaahay rooyay waa Honduras waa meesha yani Panama ay ku dhamaato waqooyiga Ameerika waxa la yiri waa isagana 90 dhibic baa la yiri 41 halkani waa jasiiradda Cuba waxa la yiri waa 96 Soomaaliya jasiiradda Cuba waxa la yiri Cuba way ka caqli badan tahay Mareykanka Soomaaliya maya way ka hooseeyaan Mareykanka ka caqli badan kan waa Dominican Republic weeye jasiiradda la yiraahdo badankooda dad madow wax dabcan cunsurna uu ku jiraa waayo meeshan yareen mooska ku hayo waxa ku jirta wadanka Haiti waa laga reebay caqliga adduunka waana wadan 100% Afrikaana waa ogtiin waa dadka Afrikaanka Faransiisku adoonhaan u keenay ee kacdoonka sameeyay iska tuuray gumaysiga Faransiiska wadanka la baxay Haiti ma ogtiin 15 sano ayay ka horeysay xornimada Mareykanka waana wadan kamid ah wadamada ugu baqarsan adduunyada ma aqaan wallahi dadka madow waxba haysta culimada horena qaar baa yiraahdo macnaha dadka madow waa la nasaqay say tahayba wala aragno qaaradda Ameerika wali ku jirna xagga koonfureed baan tageynaa wadanka la yiri ugu caqli badan yahay waxa weeye waa Peru oo la yiri waa 100.20 okay wadanka ku xigana waa Argentine waa kan waa la yiri waa 97.1 soo ma aragtaan kalena waa Brazil waa 95.44 kan waa Venezuela waa 92.61 kan waa Colombia 94 saasoo kala aad aragtaan halkan geeskan galbeedkan Argentina wadankan yaala waa Chile waa 96 baa la yiri kolka saad aragtaan halkan Caribbean Island waxa la yiraahdo ama jasiiradaha Caribbeanka badda Caribbeanka ku yaala badankood dad madow oo badan sida Jamaica oo kale waa laga reebay ka soco qaaradda Yurub aan tageynaa Yurub waatan wadanka ugu diqsan baa la yiri ee ugu caqliga badan talo waa Ruushka waxa la yiri waa 3.78 wadankan Ruushka geeska xiga waa Finland waa 99 baa la yiri dhibic 97 wadanka kale waa Sweden 98.20 kan kale waa Norway waa 98 intaas 31 kan waa Denmark saan jeclahay waa 97.68 and muxuu ahaa 97.68 kan waa Ingiriiska waxa la yiri waa 101.57 waa Ingiriiska adduunyada qaraabiyay ee Soomaali gumeeyay
waddankan kale waa Ireland waa 98 baa dhibic inta kan waa Faransiiska aan dhahay Spain waa 102 la yiri Faransiisku waa kan Spain ka koreeya waa 100.12 kan geeska ugu galbeeday qaaradda Yurub waa Portugiiska 99.95 xaggan kale hadaynu sii soconno kan waa Talyaaniga la yiri waa 100.33 waddan kale waa Jarmalka waa 99 baa la yiri dhibic intaas Poland waa intaas Belarus waa halka kan kale waa waxa weeye Ukraine okay halkan kale waa Turkiga 97 Ukraine imse 95 iyo xusuusta lambarka Ukraine sida la tusay waa waddanka ugu caqliga yar qaaradda waxa la yiri Yurub la socda halka fura ku jira sabab Soomaalida looga dhigay dadka ugu doqonsan adduunyada kan waa Kazakhstan Yurub iyo Asia way ku taala adigu yani waa Eurasia dadka la yiraahdo indhayartii iyo cadaanka isku jira waa muslim waa intaas la yiri haduu ilaahay isku rooyay ruushki wali kan waa Georgia way halkan iyo Azerbaijan waxa la yiri waa 98.3 kan waa Georgia waddanka yarna waa Armenia ma aqaan inuu mouse ku qabanayo Armenia waa 100 baa la yiri kolka qaaradda Yurub waqtaas soo aragtay caqligoodu wuu sareeya okay marka qaaradda Asia nigeeye waxa la yiri waxa ugu caqli badan Shiinaha boqolkiiba waxa weeye 6.48 ogaada Hong Kong Shiinaha ka mid tahay waxaana la yiri saad bilowga arkaysan barnaamijka idin sheegay China iska Hong Kong dadka la yiraahdo yaa ugu caqli badan baa la yiri Soomaalida ugu caqli yar adduun subhanallah waa biis caadi wallah waa wax taran buu caayo okay ka soco qaaradda Asia aan ku sii jirnaa waxa la yiri waxa ugu caqli badan Asia waddanka la yiraahdo Shiinaha oo boqol iyo intaas waxa ku xiga la yiri Japanese-ka ku xiga waxa ku sii xiga Koonfurta Korea waqooyiga Korea iyaga khadka xisaabta kuma jirto waa meesha yelowga iyaga khadka kuma jirto waa laga saaray saadogtahay waayo Mareykanka la murmeen lacagtoodu waxa weeye qoysaska yuhuudda ee lacagta Mareykanka le lacagtooda ma laha iyaga askale kolka maadaama hadduusan Mareykanku adduunyada ku kontroolin ogow khadkii adduunka iyo tirsiga waa laga saaray hatta ma ogtiin lacagta waqooyiga Korea kuma jirto yani wall monetary exchange system wala ama sarifka lacagaha adduunyada kuma jirto haddaad Google-ka tiraahdo waqooyiga Korea iyo dollarka bal ii sarifa lama yaqaana lagu dhihi soo waxa garateen ma khadka laga saaray marka saddexda indha yartaa ayaa ugu caqli badan baa la yiri waxa ku xiga la yiri Iran soo ma aragtaan halkan waa Iran carabtu waan geli doonaa ama si loo yaqaan Afrikaanka cigaalka qaata kolka waa saas Iran ba ugu caqli badan baa la yiri iyo laba indha yartaa kale Pakistan waxa weeye Pakistan iyagu caqli saas ma la yiri waa iska dad saasa Allahu musta'an Hindi iyaguna waa iska day Afrikaanka Hinduuga looda caabudo kale weeye aan sii socono waddankani waa Myanmar aw Burma la oran jiray way ka caqli badan Hindida 98 way Hindida dhibic 4 maya waddankan Myanmarna waxa weeye intaas waddankan marka buluuga caqliga badan leh meesha Asia ku jira waa koonfur bari Asia waxa weeye waa Malaysia Thailand way kaas Malaysia hoosteeda waxa weeye waa kan Thailand macnaha markaan ka tagno waa kan Malaysia waa 98.5 inta okay Australia 104 weeye ama 104.45 galbeedka Yurub ay la caqli tahay dadka ugu caqli badan baa la yiri halkani waa New Zealand cadaankoodu bay la caqli yihiin baa la yiri ogaada midabka buluuga tiqaha waa kuwa ugu caqli badan buluuga khafiifkaana waa kuwa ku soo xiga ilaa aad ka gaadho Soomaaliya hase yeeshee wadamadan kalarkan gareyga ama saas oo kala iyaga xisaabta kuma jiraan khadka waa laga saaray sida Madagascar oo kale marka carabta aynu nimaadna marka Ciraaq waxa la yiri waa 93.62 Sacuudiga 94.7 waxay lacag haysteen kuma gadan in la amaano Yaman waa 93 Sacuudiga ka hooseysa baa la yiri halkani waa Cumaan waa 92 la yiri meesha yare waa wadankii inkaarta qabay Imaaraadka waa 97 la yiri tolo miyay gateen iyo aanu ma aqaan kuwaas wax aqal ku heleen laakiin ka soconaynaa marka carabtiina waa saa waa carabta jasiiratul Arab iyo dhulka qaaradda galbeedka Asia ku nool marka carabta Afrika in keena Masar baa la yiri
و96 intaas 96.74 Algeria way halkani waa 97 Algeria waxa la yiri waa wadanka qaaradda Afrika ugu caqliga badan ha kadibna waxa ku xiga la yiri Morocco way halkani waa 97.24 soo ma aragtaan Algeria Morocco waxa la yiri asaas kan kale Algeria waqooyi galbeed waqooyi bari ka xigana waa Tunisia 97.46 marka Afrika waxa la yiri Algeria ugu caqli badan Morocco ku xigta Tunisia ku xigta hadduu ilaahay diiro Masar baa ku xigta Libya waa 94.7 marka Afrikadii Sahara ka koreysay waxa la yiri waa asaasi ugu caqligoodu way saas wadankani waa Senegal qaaradii midoobeed bin soo galay waa kan waa 92 la yiri okay xusuusta ereyga Senegal ayaa caqligaas okay Afrikada la yiraahdo Sub-Sahara waxa la yiri waxa ugu caqli badan waxa ugu caqli badan baa la yiri waxa ugu caqli badan baa la yiri Ethiopia oo caqligoodu waa 96 xusuusta Ethiopia sidoo kale South Africa ku xiga la yiri caqligoodu waa 93.63 Kenya waa 91.96 wadanka kale isagana Zambia la yiri waa 88 akhiir soo ma aragtaan marka wadan kale Afrikaan aan ku daro Nigeria la yiri waa 92.76 kolka yaa marka ugu caqliga yar oo yellow aan furaha idin geeyo kiiga waxa weeyaan IQ-ga 85 waa jaalaha 90ka waa light blue waxa la dhaho ama bluega khafiifka ee green ee cagaar xigeenka bluega lightka adigu meel dhaxa waa 95 bluega caadiga waa 100 baa la yiri bluega diqana ama more darker blue waxa weeye 105 kolka halka waxaan ku aragnay Soomaaliya aanu tagno waxa la yiri Soomaaliya caqligeedu ogaada Soomaaliya macnaha sida maabka way Somaliland Puntland waxa dhan ku jiraan waxa la yiri waa 83 sida darteed intaanu wadan soo aragnay Soomaaliya waa wadanka ugu caqliga yar ee ugu doqonsan okay caqligan ay marka sheegayaan ma aha caqligii diiniga ma aha kaas Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala quraanka a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim inma yakhsha Allah min cibaadil ulama Ilaahay waxa ka cabsada adoomadiisa cilmiga leh ee culimada Soomaa hase yeeshee waxa Soomaaliya looga dhigay caqliga yar iyo qaaradda Afrika loo siiyay waxa weeye waa shuruucda dawladnimada ayna u hogaansamayn waa horumar la'aanta waa isqabqabsiga waa heshiis la'aanta iyo dhibaatada ka dhex taagan bilmatalan wadanka la yiri Yurub ugu caqli yar yahay hadaan marka idinku celiyo waa Ukraine maxaad ku taqaanaan waxaad ku taqaanaan dawladnimadu way burburiyeen wadan super power military ay la dagaalameen waa la kala qaybsaday dadkoodii boqolkiiba 60 wadanka waa laga saaray yaani madax ma lahan koox tuuga oo Netanyahu ilmaadaradii ba haysta sida Zelensky oo kale oo wadankii baabiye Soomaa okay marka wadanka adduunka ugu caqliga yari ee la yiri ugu caqli yar yahay waa Soomaalidana waxa heerka gaarsiiyay waxa weeye dad macnaha nidaam dawladnimo iyo sharci yaqaan ma aha waa dad musuqmaasuq ku jira waa dad ninkii faqriga ahaa ee madaxweyne noqday ama hogaamiye noqday markuu yimaado doonaya inuu noqdo maalin taajir wixii dhan dhaco horumar ma jiro bridge waxaan dhismaayo horumar ceel qodi maayo jidad samayn maayo iskool furi maayo teknolojiyada warshadaha iska badaa warkooda iyaga basic life ama asaaska nolosha ayayna xataa manage gareyn karin ma maamuli karaan marka sababta loo karo waa Ethiopia marka hal lagu tiriyo wadanka Afrikada madow ama Sub-Sahara Afrika ugu caqli badan wali iyaga naftigooda waxa hoos u dhigay waayo kuwan kale la tartami lahayn sida Algeria oo kale waxa hoos u dhigay waxa weeye waa dagaalada sokeeye wadanka way baabiyaan soo khayr waxa garateen ma aha hadda bilmatalan Egypt Masar iyo Ethiopia waxa islaamaan kaliya kala caqli badan yihiin dhibic 74 kaas macnaha hal point wax ka yar laakiin waxani waxa weeye waa corruptionka waxa dadkan caqli darrada u keenay waa tuuganimada waa corruptionka waa nidaam darrada waa maamul darrada waa waxaan sharci jirin marka sidee marka ku dhacdaa dadkii Ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala inma yakhsha Allah min cibaadil ulama Ilaahay waxa ka cabsada dadka culimada ah oo cabs Soomaaliduna ay sheegtaan in Ilaahay ka cabsadeen oo muslimiin yihiin oo Ilaahay caabudeen waxa la raadiyay inay ugu caqli bataan Soomaa oo Shiinaha la caqli noqdaan may waxa weeye Soomaalida diin islaamku ma gelin ogaada Soomaalidu tawxiidka iyo islaamnimadu si dhab uma gelin waayo isagoo shahaadanayo masaajid galaya ayuu corruption iyo tuuganimada iyo hadda waxa laga yaabaa inuu nin qof soo dilay miskiina
oo gacmaha isagoo dhiig ku leh intuu weysaysto inuu tukado waadna ogtihiin alqatlu naas macnaha meeshuu ilaahay qur-aanka joogo subxaana wa tacaala khatarta ay leedahay oo xaqdarro lagu dilo waad ogtihiin soo wax garateen maaha kolka dadka soomaalida diinta islaamku ma gelin way sheegtaanuun dhaqan ahaan bay u haystaan diinna dhaqan ma ahane waa ku dhaqasho diintu waa wax lagu dhaqmo haddaad caqliga doonayso waxan waa inaad ku dhaqanto hadda iiraan macnaha waxaan idiin sheegay waa waddanka muslimka ugu caqliga badan soo wax garateen maaha yacni waad aragtaan 50 sano ku dhowaad baa cunaqabateen lagu hayay wax walba lagala dagaalamay xataa loo diiday cirbad inay keenaan ilaa ay gaaraan heer ay isku filaadaan oo wax walba iyagu samaystaan ka waran cunaqabateynta 50 sano ku dhowaad lagu hayay oo carabtan lagu hayo dee waa baabi'i lahaayeen libiya waad aragteen hal mar baa maaragtay ninkii haystay yaa laga dilay khalaas sida soomaaliya kale noqdeen ciraaq waad aragtay firqo iyo waxay isku haystaan saas dad jira ma aha soo wax garateen maaha yacni bareesharka iyo cadaadiska la saaro nolosha marka bareeshar iyo cadaadis lagu saaro ee iska difaacdo eed fight back samayso ama aad dagaalanto ood xarbido ood dhexda xirato ood hadduu ilaah kuu roon yahay ka dhiidhido wixii dhibkay lagu geystay ood la tartanto haddaad qabiil tahay qabiilada kale la tartantid aadan caayin oodan xasdin ee aad tartan iyo maaragtay hadduu ilaah kuu roon challenge la geshid ood sumuujisid dadnimadaada muujisid waa ka caqligu ma aha in marka cagta lagu kor saaro ee dhulka lagu hoos dhigo inaad adna isdhigato ood isbaabi'iso sida soomaalidan isku baabi'iyeen eber iskaga dhigeen yacni 40 sano ku dhowaad bay dawlad la'aan yihiin mana dhisan karaan wax ma dhisan karaan wax walba waa in loo sameeyo fiiri wax kale iska daaya malqacadda ay bariiska ku cunaan waa malqacadda iyo bariiska iyo saliidda saddexdaa shayba waa in loo soo dhoofiyo miyaad ogtihiin dawladdii horena waad ogtihiin in wax walba loo sameeyey oo loo sameeyey marka dadkan waxaa loo yidhi waa dadka ugu caqliga daran adduunyada waxa weeye waa dadka keliya adduunyada waktigan hadda aynu joogno aan nidaam siyaasadeed iyo maamul haba yaraatay samaysan karin marka yacni meel kasta tanaa taalla waayo dawlad xumada ay u keeneen soomaalida gaar ahaan dadkaa degan caasimaddii oo soomaali kharaabiyey oo ilaan afrika caasimad bay ka dhisantay hadda etoobiya fiiri saad ogtahay waqooyiga etoobiya iyo waqooyi bari etoobiya dagaal xun baa ka socda way gubanaysaa laakiin magaaladii dad civilized oo xadaarad leh ayaa degan artsabo ahayd taas waa waddankiina nabad u yahay qaaradda afrika oo dhanna afrikada madoona dee afrikadana madoona ay u timid iyo kuwa waqooyiga afrika waa caasimadda looga dhigay waayo waa dad la aamini karo wax lagu hadlayn karo dawladnimada garanaya haddii hadda qowmiyaddan oromada ee waddanka etoobiya haysata ay meesha ka baxdo oo qowmiyad kale timaado haddee dadkii qowmiyad loo gaadhsan maayo guryihii dawladda iyo caasimadii la dhici maayo sida soomaalidu taqaano maaragtay beegsi lagu hayn maayo la baabi'in maayo yacni wuu dhisnaanayaa waayo institutionadan iyo waxan shacabkaa lehe shaksi ma lahan marka yacni argoosiga afrikaanku waa waxa baabi'iyey dadka soomaalida la yidhaahdo nasiib darradaasaa ku dhacday waa dad ku caan baxay fiiri adduunyada dhan waxaanay aragtaa website-inay aragtaa waa world population review of IQ ama fiirinta iyo baaridda macnaha dadka adduunyada ugu caqli badan soomaalidu marka dadkaasay noqdeen dhibaatada u keentana caqli darrada waxa weeye waa dawlad la'aanta waana waxaan ka aragno meel alla meelay soomaali joogto oo ay madax ka tahay oo ay xukumaan qabiil iyo qabyaalad bay isku dilayaan xataa masaajidda yurub iyo waqooyiga amerika qabiil bay isku dilayaan fiiri qabiilkiina hadhow markay galaan sidii basal la fiiqay oo kale waxa weeye way sii fiiqi jilib bay isku dilay ilaa akhirka lagu kala tago marka dadkan qabiil baa lagu fidneeyey yacni qabiil baa lagu baabi'iyey ilaahay fidnadan ha ka soo xareeyo caqli yaraantuna waa waxa ayna dawladdii maamul u dhisan karin kolka intaasana khayr idinla wadaagayey waa kan qof kastana waa baari karaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa nabadoon sayid cabdiraxmaan